بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسر إذا لهانتين داوديال كسر دوادا ورقد وأقاسمي هورنيسا فهد ياسين حاجي ظاهر أيام مركلة ورقد فرن أدري مدحوين حسن الشيخ محمود يا حكومة ديسا هذا كهرنا وحا ورقد فرن أدري رئيس الوزراء الجمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بري أو تلوين كسي سيداسترتيد فهد ورقد وصو دري وحا قصيسا أرنتا إثيوبيا qodobada warqadda Fahad Yaasiin uu soo qoray oo faahfaahsan waan idin akhrin doonaa ee ku soo dhawaada mudane madaxweyne aqoonta aan ku leeyahay waxaan si buuxda u oran karaa inuu dhabka yahay dareenkaada iyo khudbadaha kala duwan ee aad jeedisay waxaan hubaa inay runka tahay caadifadaasi marqaanti ayaan ka ahay muddo xileedkaadii koowaad in damac kasta lagu sheegay si aad tanaasul uga samayso qodobo taabanayay dhulka iyo badda Soomaaliya maantana kalsoonitaas la mid ah baan ku qabaa inaadan saxiixayn wax taamanaya gobonnimada qarankeena mudane madaxweyne aqoonta kale aan ku leeyahay waxay tahay inaad si saa'id ah gaabis u tahay go'aanadaadu jilicsan yihiin culayska khudbadahaaga iyo cagajiidka tallaabo qaadkaaguna isma lahan Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa dharbaaxo rag bay kugu dirtaa ee kaama dhiciso madaxweyne hadallada aad ku khudbaysay hadallo ka culus oo la oran lahaa ma jirto waxaad ku dhawaaqday kelmado dagaal oo duulaan hubaysan soo dadajin karay laakiin nasiib darro diyaar garowgeedii kaama muuqdo Itoobiya waxa u dhiman oo kaliya inay lugaha soo dhigto xeebaha Soomaaliya oo ciidan iyo cudud keensato intaan ogahayna qorshahaas waa u diyaarsan tahay wayna ku dhaqaaqayaan colkana ka hortag buu ku qurxan yahay mudane madaxweyne waxaan hawada ku soo marinayaa tallaabooyinkan oo dhammaantood ka hortag ah kow Itoobiya si buuxda ugu jar xiriirka diblomaasi sidaasna xiriirka ha u jarnaado ilaa ay ka noqonayso heshiiska aan dhaqangalka ahayn ee ay la gashay maamulka aan sharciga ahayn labo ciidanka Itoobiya ee dalka jooga kuwooda ATMIS kamid ah iyo kuwooda aanan kamid ahayn labadaba dalka ka saar muddo ay dalka uga baxaan u qabo hadii ay ka bixi waayaan loo aqoonsado ciidamo gumaysi ku jooga dalka muddadaasi loo qabtay inay dalka uga baxaan waxaad raadsataa dalkii buuxin lahaa goobaha ay ka baxayaan wayna jiraan wadamo diyaar u ah inay booskaas buuxiyaan saddex dawladda inay qaado olole diblomaasiyadeed oo dalalka Afrika ku soo wareega oo ka dhaadhiciya in midowga Afrika xarunteeda laga raro Addis Ababa bacdama ay ku xadgudubtay xeerarkii u degsanaa ururka afar in hawada Soomaaliya laga xiro duulimaadyada diyaaradaha laga leeyahay ama ka diiwaan gashan dalka Itoobiya shan dalalka aan walaalaha nahay sida Turki Eritrea iyo Masar waxaad la soo gashaa iskaashi difaac waxaadna dalka ka sii saldhigyo military si ay qayb uga noqdaan amniga gobolka amniga badda cas iyo gacanka cadmeed mudane madaxweyne waxaad isku hadlaysaa rabbiga ummadaada waxaadna ogaataa awoodda aad leedahay inay isku filan yihiin difaaca dalka si sahal ah baad uga hortagi kartaa damaca gurracan Itoobiya waase haddii aad isku tashato marna hamoodin taageero iyo xoog dibadda kaaga imaanaya inuu joojin karo damaca waalan ee Abiy Ahmed dunidu mar walba waxay oran doontaa xaaladda hal la dejiyo xitaa markii ciidan Itoobiya ay xeebaha Soomaaliya yimaadaan oo ay qabsadaan mudane madaxweyne naxariista caalamka ha sugin hana ku tashan ee waxaad sacbadaada ka buuxsan kartid iyo kaararka culus ee gacantaada ku jira isticmaal oo daafac iyo duulaan ka dhigo mudane madaxweyne marka gobonnimada dalka lagu soo xadgudbo waxaa qarsoomaysa muxaafid iyo mucaarad sidaas awgeed waxaan diyaar u nahay inaan ku garab galno cadowga dalka aad tusto oo midaysan waxaa si khasab ah in la arko hogaamintaada oo leh karti ku arooriso awoodaha kala duwan ee ku dhex duugan dalka Soomaaliya warqadan waxaa hoos kaga qoran
in agaasimihii hore Nisa Fahdi Yasiin Xaaji Daahir uu soo saaray 17 Janaayo 2024.